بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin dacalada adduunka dhagaystayaasha inaga dhagaysanaya ee ku xidhan warbaahinta Southern Media Cooperation ama warbaahinta ku bahowday ee koonfurta Soomaaliya waxaanu caawa waraysi aanu la yeelanaynaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee Soomaaliya madaxweynihii 6 gobol aqoon-yahan siyaasi culus rugcadaa Dr. Cali Cabdi Baab oo haatan isagu ku nool dalka Ingiriiska isla markaana ah wakiilka dawladda koonfurta Soomaaliya ee qaaradda Yurub sidaa darteed nasiib bay u tahay idaacadda Southern Media Cooperation iyo shacab weynaha Soomaaliyeedba in Dr. Cali Baab ay microfonka ku soo dhawayso Dr. Cali Baab ku soo dhawow stuudiyaha tooska ee Southern Media Cooperation caawa bismillah ودوهاي Southern Media Corporation madaxdeeda iyo shaqaalaheeda iyo dhageystayaasha dhammaantiin waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale annaguna waanu kaa qaadnay dadweynuhuna way ku dhagaysanayaan si toos ah Dr. Cali Baab sida aad ka warqabto maadaama aad tahay siyaasi rugcadaa ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika waayihii ugu dambeeyey waxaa jiray siyaasad cirka sii shareertay ee ka jirta geyga Soomaaliya taasoo ruxdayba dhammaan dawladda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan sida aad ka warqabtid waxaa jiray waayihii ugu dambeeyey qalalaasa siyaasadeed kaasoo waddamo shisheeye ay faraha kula jireen gudaha dalka Soomaaliya saa ka warqabtid ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliya loo soo magacaabay ee ugu dambeeyey Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha baarlamanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa fooda isdaray iyadoona xanta iyo nuxnuxdu ay sheegayso in madaxweynihii uu dhan la safan yahay sidaa awgeed gudoomiyihii baarlamanka mooshin ayaa laga keenay kadib markii uu isagu mooshin ka geeyey arrimaha imaaraadka diidada baddii berbera iyo badaha kale ee dekedaha Soomaaliya saa awgeed Dr. Cali Baab maxaad la wadaagaysaa shacabkaaga Soomaaliyeed siyaasadan qirqirta ah ee ma arkaysa qalyayaxaysa dadka dalka iyo diinta Soomaaliya hay Dr. Cali Baab bismillah marka ugu horeysa dawladdan yani 8 maars 8 February waxay ku timid si sudfa ah aniga maalintii la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan ka hadlay maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahan qof xabili kara ama yani naqan kara madaxweyne qaran Soomaaliyeed maxaa yeelay isaga oo prime minister ah oo dalka iyo dibadda looga banaan baxay oo la taageersan yahay ayaa Uganda looga qaaday Kampala Accord xilkii iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ka dhul sugayeen dibad baxyo iyo taageero ay u muujiyeen dal iyo dibad marka qofka noocaas ah yani shakhsiyadiisa iyo buugii uu qoray markaan akhriyey ma ahan mana istaahirin laakiin Allah u qadaray si sudfo ku yimid laakiin Dr. Cali Baab aan kaa dhex galay madaxweynaha haatan ka taliya dalka Soomaaliya ee federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waqtiga ay sheegaysid awood military ayaa la saaray ra'iisul wasaaruhu ahaa muddo bilooyin 6 bilood ah kadibna ma arkayse laba shariif ayaa ma arkayse isku qabtay xilkaasi ugu dambeyntiina xilka sidaas ayuu kaga degay marka soo lama taariikhda dib u noqday intaan yani su'aasha aad i weydiisay intaanan jawaabteeda imaanin waxaan waa wax yar oo brief ila rabto yani oo tacliiqa aan ka bixiyo nidaamka yani dawladdan ay ku timid hay hore u gal dawladda tan sarfuu sheegay ortarinkaasi daciifnimadaas ayaa qabatay isagoo prime minister ah oo dalka iyo dibadda ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aga banaan baxeen ay taageerooyin diin iyo hoo u muujiyeen ciidamadii qalabka siday saasoo kale yani u taageersanaayeen ayuu meel cidla ah aga dhaqaaqay taageerooyinkii iyo yani himiladii ummadda Soomaaliyeed ay u qabtay haato waxa uu ku soo baxay maxamed cabdullaahi farmaajo xildhibaanada cusub iyo xildhibaanada baarlamaanka oo rabay in
isbedelkaasina isagaa kusoo baxay oo ilaahay yani qadarta ilaahay u qadaray wuxuu yani prime minister ka dhigtay wiil ama habeen haddii aan afka ku dhuujiyo oo yani seedigiis ah oo yani la og yahay in yani waxaad ula jeedaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waa seediga madaxweynaha dalka soomaaliya farmaajo يعني شقديسي وكسوها نقاضي بأي أهد نفط أوريو يبنزين هساهاتو أرنتاسي وحا يعني أي سو أرنت هذا التاجل البرلمان كتدلتي وحا أي سو بلاوتي بطي دلك لكياني بلاغ وطر شكد لدهو شكد بلاغ وطر لدهو وشكد يعني ماردر وشركة يعني لوجينير لكن دكتور علي باب شركة بلاك ووتر اسكما إيمانين يا معنيه قندراس لسوا قلي أو ما أركي سيد دلكي كاني واسو وذا شركة داسي الوحا كاني مدحوينها قبيل داك وفق الباب أيا وضن شريف حسن بعد وجده شريف حسن شيخ آذن شريف حسن شيخ آذن يو حسن علي خيري قلت الدولة ده سديد مارس والدولة اسمه جفت إلى نبو لكن شريف حسن شيخ آذن ومدحوين مامل قبلات سيدا سيدرت شركة بلاك ووتر شركة بلاك ووتر وحالقوا اذايا ان اي قرحيada وحيابها النوع عاسا اي فلسو marka maxaa isu geyn kara madaxweyne Shariif Xasan iyo Black Water fursad eesay waa buuso wada horta dawladda 8 February waa dawlad isku jeestay iyada qabto ay wada xilligooda ah oo isku jeestay waxaad ula jeedaa dawladdu waa dad xidida macnaheedu madaxtinimada qaybsaday waa dawlad isku jeestay Shariif Xasan iyo Khayre dhinaca isaga jeefaan way isku jeefaan farmaajo iyo Khayre way isku jeefaan waa dawlad saas isku soo wareegsada isku jeestay habeen badaqaana oo isku jeestay sideedaba dalka wuxuu faraha ka baxay markii yani ninkan dulaalka ah siyaasadda u fahmay in yani qas iyo qalaanqal siyaasaddu ay tahay ayuu u fahmay Shariif Xasan Black Water isagaas u horseeday oo wadankii keenay shirkadaha DP World SSG iyo mataqaana Free Zone waxaa oo dhan waxaa dhalay Black Water ayaa wada dhalay ayaa hooyo u ah دكتور علي باب أدور راليا قضب كماشا شركتهن هاتن ما أركيسي سيدا دي بي وولد إيو ما أركيسي بلاك ووترز oo dadka Soomaaliyeed ay dhibsanayaan in badan isla markaasna ay aaminsan yihiin dalku kheyraadkiisa inay qaadanayaan ayna la wareegayaan ma arkayse saldanadii ama awoodii Soomaaliya macnihi aadan waxa ka daran yani la wareegida iyo waxa ka daran Black Water yani taariikhdeeda markii dib loo raaco waa taariikh badow waxayna ka dhinacsataa wadamada yani colaadaha ka jira wadamada yani dowladaha jilicsan ay ka jiraan ayay ka qaraabataa oo ay ka ganacsataa waxaana waaye ganacsigeeda inay yani adeegsato ciidamo calooshood u shaqaystayaal oo laga kiraysto weliba xataa waxay isticmaashaa air strike oo mataqaana diyaarday dadku duqaysaa sulay duugtaa waxyaabo badan oo halisa ayay samaysaa qaraxyadan dhacaya iyadaa ka dambaysa weliba qaraxii ka dhacay 14 October Zoba agtiis ka dhacay yani qarax yani macmal ma ahayn waxaasoo dhan waxaa ka dambaysa Black Water shirkadaha DP World FSG iyo Free Zone waxaa dhanna waxaa dhalay Black Water saa dhalay markastay aqoonyahan Dr. Ali Bab laakiin baahida madaxda sare ee dawladda Soomaaliya shirkad noocaasa oo qaraxyada macnaheedu shacabka ku xasuuqaysa sameynaysa ay baahida la galayaan heshiiska ay u qabaan baahidaasi keentay maxay tahay bay kula tahay sida carabka aad ku dhufatay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu yani rabaa in uu ku muquuliyo gobolka Shabeellaha Hoose isagoo markaas u arkaayo in uu ka dinacsado xeebaha gobolka Shabeellaha Hoose
isagoo markaas raba inuu ka dhinacsado xeebaha dowladda shabeellaha hoose shirkada Black Water waxay ku taalaa xarunteeda ay tahay Shanghai dalka Shiinaha waxayna yani joogtaa ama ay aastaa haraadiga warshadaha nuclearka ee Shiinaha iyo adduunka ka keento iyo radioactive disposalka ayay meelay ku aastahadisaa Shariif Xasan waa ganacsato dadisleey waaye shaqadiisana waa intaas yani waad aragtaan maalin laba maalin isku xigta ma joogo magaalada Baydhabo xafiiska ma fadhiyo ummadda oo u dhamaanaysa ma oga haraad baa ka jira Baydhabo yani dhibaata ka jirto 54 oo barakacyaal baa ku nool magaalada Baydhabo daafaheeda Shariif Xasan war u bahaayo fuustadii biyo waxaa la gadaa 70,000 yani waxaasoo dhan wuxuu u ogyahay male hadda wuxuu dhaxrafadooyaa yani fidadii asaga uu ka dhex abuuray baarlamaanka baarlamaanka fidadiisa waxa ay bilaawatay xasan cali khayre markii uu ka qayb galay shirkii AU-da ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa lagu qaftay ayaa xasan cali khayre iyo waxa soo arkay wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga xasan maalintaas ayaa fikradiisii la bedelay maalintaas kadib ayay asaga iyo Shariif Xasan isu soo dhawaadeen oo mataqaana arrimahan la geliyay marka shirkadaas DB World markii baarlamaanka xafidahullah yani Jawaari uu yani soo dhigay baarlamaanka cod loo qaaday oo laga diiday in shirkadaasi yani dalka yani guud ahaan ama Soomaaliland ha ahaato dalka guud ahaan inaysan ka shaqayn karin ayaa waxaa lagu colaadiyay Jawaari yani sababta mooshinka keentay meeshaas ka yimid oo ka soo bilowday iyo Shariif Xasan oo qorsheynayay in uu meesha laga saaro Professor Jawaari kadibna lagu bedelo dhiman isaga oo wato oo soo carbiyay dhimankaas oo isaga oo soo carbiyay wato oo haddaba aan aragnay TV-yada la soo taagan Jawaari ha is casilo TV-yada la soo istaagay laakiin Dr. Ali Baab haddii aan ka dhex galo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Cali Khayre markii Soomaalidu ay dooratay baarlamaanka Soomaaliya markay doorteen labadaasi mas'uul ay u soo baxeen Soomaaliya aad baa loo dabaaldegay waxaana loo arkay niman muwaadiniin ah ka soo horjeeda ciidamada shisheeye ee dalka ma arkaysa duulaanka ku ah iyo dalalka dariska ah ee doonaya dalka Soomaaliya in ay qaataan wabiyada beeraha iyo bada marka sidaas darteed maad hadda waxaad ka dhawaajisay Dr. Ali Baab haatan waxaad ka dhawaajisay in ma arkaysa DB World heshiis lala soo galay heshiiskana sideedaba dawlad waxaa geli karta laanta fulinta ayaa u geli karta marka haddii sida aad sheegtay laanta fulinta xukuumadda iyo ma arkaysa madaxweynuhu ay heshiis la soo galeen shirkad ajnabi ah taasoo doonaysa inay qaadato badihii Soomaaliya iyo dekadihii Soomaaliya aan dhahay bariga marka ma dhihi karnaa muwaadinimadii ay sheeganayeen waa ay lumiyeen oo kalsoonidii shacabka way lumiyeen Jawaarina wuxuu u muuqanayaa mar hadduu taasi ka soo horjeedo nin haliyey ah waa ku soo wadaa horta dhimankan 8 February wadadii inaysan ahayn aniga waxaan sheegay intaan la dooranin maxaa yeelay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo buugga uu qoray markaan akhriyay maba istaahilo mana u qalmo wadanina ma ahan ummadda Soomaaliyeed buu kala geeyey waxyaabo aad u falsan buuggiisa ku yaala maxaa ku qoran buugga uu qoray madaxweyne Farmaajo qabaa'ilada Soomaaliyeed buu yani xataa ihaaneeyey haba kala badnaadeen yani sifooyin ku tilmaamay weliba annaga si yani aad u bahdalan buu xataa yani noo qeexay adinku waa adinkee annagoo digri brifla haddayna dib ugu noqdo ma habo marka waxa waaye waxay adeegsatay dawladda 8 February yani wiilal ilaa iyo 500 oo wiil oo social media u ololeeya ayay samaysteen يعني social media هذا يعني ودني ملغو نقول كرو لكن دكتور علي باب eedayma culus baad soo jeedinaysaa eedaymahaasna waxay u baahan yihiin cadayn maxaad ku cadayn kartaa dawladda waa ku soo wada adiga waxaan cadayn evidence u hayna ku hadlo waxay ku soo daayeen barta bulshada social media ay ku soo daayeen 700 wiil marka ay ku soo daayeen ayaa propagandadii iyo yani nabad iyo nolol maalintii meesha ay ku soo qoreen waxaan ku qoray nabad iyo naxdin
aniga kelmadaasaan u bedelay waxaa war nabad iyo nolol maana waa nabar iyo naxdin hadda waa la joogaa nabar iyo naxdintii aan maalintaas sheegay haddaa la joogaa marka waxa waaye wadadii mayan ahayn yani qiiqisku qarisay ahayd social media loo adeegsanayay hadda yani lasoo qalday way wada ogaadeen haddii wadaniyiin ay yihiin waa tahay yani hadda buulaha yani wax ka dhacay waad aragteen aato yani waxaa la wareegay ciidamadii new booliska la wareegay dowladda maxay iga hadli weysay tii koonfur galbeed maxay iga hadli weysay jubbaland maxay iga hadli weysay war aaway wadaniyadii ay sheeganayeen waxa yaab doctor cali baab laakiin soo lagama yaabo in ra-iisul wasaaraha iyo adameysto hallahu war waxaa yaaba maalin dhaweed guri ku yaala yani yaksid ayaa waxaa guftay waxaa ku dhintay 7 cunug iyo hooyadooda ku dhintay xataa dowladda kamaya hadlin 4 maalin la qaxiyaa dowladda kama hadlin madaxweynaha waddanka wuxuu galay qalqal buu galay baarlamaankii oo ah yani saaciidadiintii ayaa isku dhex buuqay madaxweynaha xataa wuu soo faragelin waaye marka sidiisaba waxaad moodaa maxamed cabdullaahi farmaajo in yani yaraantiisii ay ku daahday autism inuu ku daahay aa umalaysid oo nin u baahan wuxuu eegyahay nin u baahan speech therapy in la geeyo u baahan doctor cali baab adoo raalli ah ma arkaysa daawad dhegaystayaal waxaad inagala socotaan southern media cooperation waxaana isla markaasi waraysiga si toosa ugu jira doctor cali baab wakiilka dowladda koonfurta soomaaliya ee qaaradda yurub haatan fadhiya dalka ingiriiska doctor cali baab su-aalaha ugu dambeeya annagoo guda jirna waxaa jira heshiis ay gaareen ma arkayse qayb ka mid a baarlamanka soomaaliya iyo ma arkayse guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka federaalka soomaaliya kaasoo ah in mooshin lagu rido guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliya professor maxamed cusmaan jawaari sideed u aragtaa si gaaban sideed u aragtaa taas waxaa sabab u ahayd xasan cali kheyre waa tii uu tegey abudabi uu tegey dubai markii somaliland iyo dib loo kala siixay xasan cali kheyre isagaa soo saxiixay waxaan aragnay xataa social media xildhibaanadii isaga la socday diyaaradii lasoo saarayaan aragnay mataqaana qarsoodi ma ayn ahayn xasan cali kheyre markii uu meesha yimid uma hadlin yani si qof dowlad yani mas-uul iyo shacab ka ah iyo waddan uma hadlin gabadhii yani toresa marin awees ayuu meesha soo istaajiyey warqad yani si bari uu wasiir soo qoray yani ayaa lagu daleecay d b world ma uusan filaynin in baarlamaanka uu go-aan ka gaarayo xasan ma sugaynin xasan cali kheyre jawaari waxaa lagu haystaa gentleman agreement uu la galay oo ahayd yani in 4 sano oo dhameetay inaan d b world laga hadlin laakiin doctor cali baab ra-iisul wasaaraha markuu dubai ka yimaaday wuu diiday oo ma arkaysa wuxuu yidhi dalka hala difaaco markuu hadlayo muxuu dhahay warqada ay qortay yani wasaaradda dekedaha يعني bahal warqad ka soo baxday prime minister officekiisa xafiiska prime ministerka bahal warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maahan annaga ciyaal ma nahay waa warqad ka soo baxday waa xafiis wasiir ugu dambeyntii xafiiska prime ministerka kamana soo bixin xafiiska madaxweynaha waxay ka soo baxday xafiiska wasiirka dekedaha idaareedka badda doctor marin awees xafiiskeeda ka soo baxday markaste waqtigoona kulaalaya doctor cali kheyre ma filaynin يعني إنساس يعني برلمان القوانتاس وقالها بالسويد because أنت برلمان الدين بوحو هم إنه هشيس gentleman agreement ولقى الجواري وانا مواطنة وانا يعني أستاذ خارج جواري ما يعني من هذا يعني شرعية يبطق على دولة دمال برنايا ما وانا يعني أنت أصلا ويارك يقول كل دولة دمال إدلام كدولتين وكديني وحال يصبح ورقد يعني الجواري الواسطة وحوي دي جنتلمان اجريمنت والجواري ديري دي بي والد الأوباس مريء برلمانك اللي قبل ممنوع الدلك تاسا لقو علادي ugu dambeyntii doctor cali baab waqtigoo ina kulaalaya su-aasha ugu dambaysa maalmihii u dambeeyey waxaa la arkayay magaalada marka heshiis ka dhacaya adiguna waxaa tahay muwaadin ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose guud ahaan koonfur galbeed ee soomaaliya ama koonfur soomaaliya heshiiskaasi waxaa ka muuqanayay madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cali kheyre waxaana la sheegay in 2 beelood oo marka degan lagu heshiisiinayo
arrintaasi macnihi maxaad faahfaahinood naga sii kartaa ugu dambayntii labada beelood yaa waaye toban iyo laba koofi iyo biimaan miya marka wax sooda degane yaa lagu heshiisiyey marka waxaa degan laba beelood beel la dhaho 12 koofi iyo biimaan baa degan mayagaa la heshiisiyey annagu warbixinta waxayna soo gaaraysay laba beelood oo degan marka in meeshaa lagu heshiisiyey maxaad akhbaar laba beelood oo ayo waaye labada beelood yaa waaye annaga marka waxaan ku ognahay inay degan yihiin biimaan iyo 12 koofi inay degan tahaan ognahay annaga marka inta oo saddexaysa inaysan jirin marka labada beelood oo la heshiisiinayay ma 12 koofi baa iyo biimaan baa mise waa qolooyin oo anana weyn oo jaan oo annaga ilbaaragta ah adigu ka siyaasi ahaan heshiiskaas sideed u aragtaa heshiiskaasi waa heshiis aan jirin waxaa soo firi heshiiska goobta waxaa fadhiyey cabdiraxmaan xaaji ede biimaal maahan waa gaadsan ibraahim cali xaaji haddii layno waxaa la heshiisiinayey shirkaas lagu heshiisiinayey ibraahim cali xaaji iyo abtigiis inta cadde ayaa la heshiisiinayey intaas waa simply waa ibraahim cali xaaji oo sheegta suldaanka biimaal inuu yahay iyo abtigiis inta cadde ayaa la heshiisiyey generaal inda caddaad ula jeedaa ha generaal mahane mooyaan inda cadde iyo waxa la heshiisiinayay ibraahim cali xaaji generaal inda cadde laakiin waa nin u dhashay gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed soomaaliya warma ku dhashay intuu ku dhashay warma loo dhashay intuu ku dhashay maxaad ugu diidan hadda waxaa la keenay abaartii dabadheeraa la keenay u yimid magaalada ee shabeellaha hoose keligiisa meeha ummad soomaaliya waxa dowladii tacaanka ayaa dad iyo duuyo intay jaarad kusoo daabushay soo duldejisay annaga 74 la qabsadayno dowladii tacaanka ayaa waxay dad iyo duuyo intay jaarada kusoo daldashay ayna soo duldejisay magaste inta hadda waasu kamid ahaa kuwii aan baaquliyaalka iyo shaatiyaalka aan siinay oo aan soo dhaweynay ayay ahaayeen heshiiskaasi ugu dambayntii muxuu kuula muuqdaa adigu ma heshiis macnihii sharci ah mise heshiis aan wadiiqadii loo baahnaa aan loo soo marin ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa iyo inta nabadda jecel horta heshiis wuu isku dayey hogaamiyaha saddexda gobol wuu isku dayey afkuyaa lagu qabtay meel walba lagu qabtay war heshiis waxaa wada geli kara laba qofood oo deris ah ama laba qofood oo wada dhashay ayaa mataqaana la heshiisiin karaa laakiin nin soo duule oo aan tuulo ku lahayn oo firi adiga guri waa dukaan waa ka samaysan karaa inta waa dhisan karaa laakiin tuulada haddaadan ka soo jeedin oo deegaanka aan lagu nisbin haddeen yani adiga aad yani deegaan ku tahay marka waxa waaye heshiiskaas waa heshiis baadil ah ee la rabo in mashruuc yani loogu cuno lacag international community loogu cunayo waaye ma ahan heshiis la heshiisiinayo laba meelood oo dagaalsan ugu dambayntii doctor cali baab waqtigoona kulaalaya maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed uu ka go-aayo biimaal ma fadhinin meesha waxaa fadhiyey gaadsan iyo waxaa fadhiyey ibraahim cali xaaji abtiyaashiis oo la heshiisiinayay intaasay ahayd sheekada ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya siyaasadda dalkuna cirkay isku sii shareeraysaa haatan mooshin ayaa loo ballansan yahay maanta oo 28 bishii 3 2018 ahayd ayuu qabtay guddoomiyaha baarlamanka in maalinta ugu dambaysa ay tahay in mooshinka isaga laga keenay macnihii loo codayo saa awgeed ma aysan dhicin guddoomiye muudey isagu waxa uu taagan yahay moshinku ilaa iyo 31 bisha maarso haddaba isqabsigaasi siyaasadeed iyo madaxweynihii ka aamusan madaxweyne cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii isaguna aamusan oo sida hadda adigu aa sheegaysa dagaal uu ku jiro DB World oo iyaduna halkaa taagan iyo maamul goboleedyadii oo iyaguna ma arkaysa qofba macnihii dhan u ordaya maxaad shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa in siyaasadda Soomaaliya lagu dajiyo adoo soo koobaya waxaan baaq aan u diraa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay xildhibaano sida guddoomiyihiina sheegay baarlamaankiina badbaadsada jiritaanka baarlamaankiina badbaadsada ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hadda waad aragteen naba iyo naxdin waad aragteen dadkii social media lagu buunbuurinayo oo lahaa wadaniyiin waaye waad aragteen
بلد حاول دربي لقد سنة لقى اللي واي دلتي وحنا يعني لقي يبيو شكله يعني وطولة أولي يعني دلت الدرا أو يعني واحد دولار صوبية بلا وتر المهنة على اللي يبيو بكوا حواي دلت بدبال اللي تجيب هاي دولت الحروبه كنت على شيء شعبك إذا أنت الله بسيط كذا واحد يقول لي دلت ودلت كذا ولي واحد فاص ولا لي هذا لا يرى الجو مقدسة يا دولة صوماليا واحد لا هي دولة كبحة دولة وبين بيسكتي وهي شلي سكتي وكسر بحي ويسي بالحوالي واتاس جو غيبة أفتي جري واحد الله هي روحه كنا ما لا يعني إنه إذا مثلا يستو هو إنه وضع يعني بريستر قبصة مرة وأسيله يعني هروية الجوة روحه هو إنه حلو إذا قبصة وضعته بس هو حلا شعب تواد أركتين وإذا كنت لانتهاي إن هجردامه يبقى أنا تيسس مخرج يعني قفت بالآدم تدري حد يعني تدري حد مخصصته بس هو تدري حد خيرية فرباجه وحسها حد هو يسوق بعد البلاد كتلا marka waxa way ka tasada ayihiina dalkiina difaacda sida baalni weyn reer badan xawaayo isaga difaacin siyaasiga isaga difaaca dawladda qabta in yani wadanka ay iibiso xalana wada aragtay wax ku dhaxyaalo wadanka waa si kala fogaaday astaanti dawladnimada way baabaysa haddii baarlamaanka uu saa kusii socdo marka waxaa leeyahay dalka intuusan yani ixtilaal iyo mataqaanaa gelin dalka هلا بدباديو بدباديو باي دفتي دلته بدباديو باي هلا بدباديو شعب الصوماليين وحاليا دلته يا دلته بدباديو باي هلا بدباديو ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa dhagaystayaal wakiilka dawladda koonfurta Soomaaliya ee fadhiya dalka Ingiriiska isla markaasna u waramayay Southern Media Corporation anigoo ah Ustaad Adam Increase ayaana waraysiga ka qaadayay دكتور علي باب aad ayaad u mahadsan tahay waraysiga aad na siisay Southern Media Corporation aad wadankaga hambaliyay yani xiriirka ay la soo sameeyay wala mahadsantiin Yeah.